عبدالفتاح مهد أحمد وحان كميدا بلشدة قادكو استعماشو مقالة مقدشو maalintii afraad ay qaad la'aan aan u haysaa magaalada Muqdisho gudaheeda waxaan u baahanahay anaga waxaan nahay dad maadaama 40 sano da'deenu jirto 25 sano qaadka ayaan cuni jirnay isticmaali jirnay balwad bay noo noqotay waan u baahanahay qaadka run ahaantii maadaama dawladdeena ay amartay duulimaadka caalamiga in la joojiyo dawladdeena amaamiirta ay bixisaa kamid ah laakiin waxaan codsanaynaa in qaadadkeena sidaan ku heli karnaa ku helno maadaama nahay bulshada qaadka aad ugu taxan mana noolaan karna qaad la'aan waxaa dhacday hadda tusaale ahaan shaloo dhan meel baa la dhahay qaad baa la keenay waan raadiyey bajaadaan sii raacay mid kale aan soo raacay waa sii socday shaloo waxay igu dhacday 6 saac ilaa xal 2 saac qaadaan raadinay marka waan ka xumahay qaad la'aanta magaalada la dhigay waxaan u baahanahay qaadka in loo soo fasaxo bulshada wax garadka dhanba iyo dawladdeena Soomaaliya qaadkan la joojiyo waa ku faraxsanahay maadaama magaalada waa isku furtay wallahi aad iyo aad u faraxsanahay kule dad qaad cuno ina iska daayaan magaaladan shaahta ina gataan oo baaqay am fan wallahi jaadka duumaad kule dadka dhaqdhaqaaq way yaraanaya 4 saac kadib dad mal arkay am faanta hadda magaalada waa isfurtay qaadkii wallahi inuu joogo aad jecelnaa anaga ilaan haweenkii ilaa 6 saac 7 saac 8 saac waa la socdaa marka inuu ina la keen aanu faraxsanahay dhamaanteen dadka Soomaaliya jaadkan wax jir maan iska daa bismillaah waxaan aad u faraxsanahay joojinta la joojiyay qaadka dhibaato fara badan ayuu ku hayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogan qoys iyo cid walba waa dhib ayuu ku hayaa ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa sidii loo joojiyay in looga dhabeeyo oo dadka wax khayr qabo ilaahay ugu bedelo inta ka ganacsatana bedel khayr qabo inay ka fikiraan wax laga ganacsado ayaa badan inay ka fikiraan shaqooyin kale iyo waxyaabo kale ay ka ganacsan karaan ay ka ganacsadaan wallahi wax farq u dhaxay mal wax kasta waa la dhaafi karaa wixii oo qofka go'aansado go'aankiisa ay ku xiran tahay qof walbana qalbigiisa hadii uu nadiif ka dhigo oo isdajiyo waxa uu rabo uu heli karaa wax ka khayr badan wax walba waxa ugu daran dadka ka ganacsado inay iiga joojiyaan ganacsiga sadii mar ay joojiyaan ninkii cun lahay meel uu ka cuno ma leh waaba weyna Soomaa iigana wax khayr qabaan Ilaahay uga baryaa inay helaan